daawadayaal ku soo dhawaada qaybta idaacadda radio baraarug media waa laabay ugu soo gudbina waxa ka dhaca geyga Soomaalida iyo caalamkaba saaxiibayaal haylaawina inaad ku dhufataan subscribe oo si la gareysaan lana wadaagtaan saaxiibadiina kale si aad halka mar walba nagala macluumaadka ugu soo gudbina ugaas Axmed Salebaan Shide Axmed Ilxid ugaas Mahiigaan halkan waxaan hambaliyo uga dareeyaa madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi ururada uu furay uu ku dhiiraday aad iyo aad geesinimada uu sameeyay waan ku hambaliyanayaa ururada uu furay uu ku dhiiraday ururaduna waxay saasay sax ku tahay sharcigaana ogol marka ururadu in la furaa saasay ku ansaxday sidaa darteed qolada qaylinaysa ee xusbiyada mucaaradka waxaan leeyahay Somaliland waxba dhacay iyo dhibada mucaaradka waxay ku qaylinayaan xalay waxaan arkay xilli dambe shir jaraa'id ay qabteen ee leeyihiin waxa weeye waa sharci darro madaxweynuhu sharci darro ugu furay madaxweynuhu waa sharci baan leenahay bulshada Somaliland oo dhan la gooyo uma baahna qaylala uma baahna xusbiyana soo hortaagnaado 20 sanadood iyo 30 sanadood iyo dhowr iyo 20 sanadood toona uma baahnin dalku waa dimuqraadiyad waxa weeye madaxweynuhu waa sida uu furay ururada uu ku mahadsan yahay waan ugu hambalyeynaa waan ku garab taaganahay golaha baarlamaanka ee doonaya xeer aan jirin inay ka doodaan xeerkana uu ansaxa mana fadhiisan karaan kamana doodi karaan istay qusayso oo nabadgelyada amniga qaabilsan cidii ka hortimaada sharciga dalka u daaliya dastuurka qaranka waan xabsiga loo taxaabo ma dhiiray liinta ku cabaan gudoomiye Faysal wuxuu jeeday in isku yiri Soomaaliland gabi ahaanba dib loogu noqonayo sidii boorimo kale ee tirmaato lagu tuuro kale in musana wadjidkii kala marinayo taasi ma dhici karto Faysal Cali Waraabo 20 sanadood buu wadanka joogay waxa laali wuxuu ku soo kordhiyay ma jirto shir uu leeyahay Somaliland baa isugu imanaysan ma jirto dalku madaxweynuhu leeyahay daan hay ugaaskii guud ee Somaliland cid isu imanaysan ma jirto shir la qabanayaana ma jirto dalkuna dawlad buu leeyahay dawladda loo hoggaansamo baan leeyahay iyo madaxweynaha qaranka sharcigaana furay ururada madaxweyne Muuse Biixi waxa leeyahay muddo kordhin ayuu ku doonayaa arintan in muddo kordhin loo sameeyo intii madaxweynayaal dalka soo martayba marka muddo kordhinta 2 sano Muuse Biixi doonayaa kordhinta loo sameeyo taa marka ma inuu qas dalka ka bilaabo hadii muddo kordhin uu isagu xaaraan rabo qas ma aha sharciga ogol horena ururada mucaaradka urshada rayidka way ka hadleen in ururada la furo dadkuna iyaga jeclaa ururada in la furo oo Faysal Cali Waraabe iyo xusbiyada kale aanay soo taagnaanay xusbiyada la furo golaha wakiilada baqas ka dhacay ka warmaanta qaska golaha wakiilada ka dhacay aad iyo aad baan uga xumahay laakiin golaha wakiilada maanta wuxuu yaalaba ma jiraan iyo fadhi uu yaalay waxay ka doodayeenba ugaas adiga lagu arkayaa in afkii Muuse Biixi aad ku hadlayso kale maadaama leedahay madaxweyne wax walba ku sax oo wixii ka aankay laga dagaalamay loo arki karo Soomaaliya alkaro madaxweynaha adigu islaadiintiisa uu sameystay daawasanbaad anigu madaxweynaha waan taageersanahay waxaad ku taageersanahay waxaan ku taageersanahay madaxweynuhu waa madaxweyne go'aan leh waa madaxweyne adag waa madaxweyne dalkan doorashooyin ka soo qabtay waa madaxweyne nabadgelyadii wadanka ilaaliyay waa madaxweyne wadajirkii dadka ilaaliyay waa madaxweyne xalaal baan leeyahay xisbiga kulmiyana kula tahay hadii ururada la furay soo noqonayo xisbiga kulmiye hadii ilaahay soo celinayo uu soo noqonayo hadii kalena uu dhacayo hadii ilaahay soo celinayana uu imanaya waxaan ilaahay soo celinay marka hore ma soo noqdaan marka ururadaasi ma kula tahay Muuse Biixi waxa la leeyahay 2 sano ku ruuxanaya waxba kama jiraan ururada la furay oo ku dhacay waxaan aaminsanahay Axmed Salebaan haan ugaasahan inay ururadaasi saxiin madaxweynuhuna 2 sano ku ruuxanayn 3 sanana ku ruuxanayn sharcigii uu raacay wadanka u yaalay iyo dastuurkii qaranka ururada la furanay sharci tahay sharciguna uu ogol yahay Soomaaliya inay Somaliland wajahayso xaalad la mid ah Soomaaliya oo kale balka waran hadii uu talaabadan qaado Muuse waxa laale wax ka jira ma jiraan Somaliland waa beelay isu yimi waxa weeyay maaha sida Soomaaliya oo kale waa beelay isu yimi waa dawlad dhisantay dimuqraadiyad qaadatay ciidan bileysho dhisan buu leeyahay ciidan military oo dhisan buu leeyahay ciidankii asluubtoo dhisan buu